بسم الله الرحمن الرحيم. maanta taariikhdu tahay 3 bisha saddexaad 2014 saxaafadda annaga ayaa idin yeedhnay waxaanuna idinku yeedhnay inaanu halkan uga sheegno ganacsatada reer Puntland in la qaban doono ama aanu iclaamino doorashadii golaha sare ee rugta ganacsiga iyo warshadaha sidaynu la soconnona rugta ganacsigu waa qayb ka mid ah wasaaraddan isla markaana wasaaradda ayaa waxay leedahay qabashada iyo abaabulka shirweynaha lagu dooranayo guddiga maamuli doonta rugta ganacsiga iyo warshadaha waxaa jirtay in rugta ganacsiga iyo warshadaha ay sharci ahaan doorashadeeda la qabto labadii sanaba hal mar iyada oo ay kaga ekaato labada sano kadib in rugta dib loogu doorto guddigii maamuli lahayd sida guddoomiyaha labada guddoomiye ku xigeen iyo golaha sare ee maamulka ee rugta ganacsiga iyo warshadaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Puntland oo la aasaasay muddo dheer doorashadii ugu dambeysay ama xiliyeedkii ugu dambeeyay guddigan maanta ayaa waxa uu ku ekaa 16 aan idhaahday 14 bishii lixaad ee sanadkiina soo dhaafay ee 2013 sidaas darteed waxaan garan karnaa inay muddo dheer ay ka dambeysay oo ay ahayd in mar hore la magacaabo guddiga lana qabto doorashadii ganacsatada si loo soo magacaabo ciddii xilka qaban lahayd taasi nasiib darro ma dhicin waxayna muddo dhaaf dheer tahay muddo 9 bilood ku dhow sidaas darteed maadaama maamulkan cusub ama dowladdan cusub ay dhalatay loona baahan yahay isbeddel ayaa waxaa la gartay oo aan wasaarad ahaan go'aaminay inaanu qabanno shirweynihii lagu soo dooran lahaa golaha maamulka ee rugta ganacsiga iyo warshadaha shalay oo taariikhdu ahayd ama aan idhaahdee daraad oo taariikhdu ahayd 1 bishii saddexaad waxaanu u qoray go'aankaas la gaadhay waxaanu la gaadhsiinay maamulka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee ku yaala magaalada Garowe ama aan idhaahdee ee ku yaala magaalada Boosaaso sida ku cad warqadda qoraalka ah ee hadda aan gacanta ku hayo hortayda taalla oo ka soo baxday wasaaraddan taas oo taariikhdeedu tahay lambarkeedu yahay 15 waxaanuna u gudbinay golaha ama guddiga maamulka ee rugta ganacsiga iyo warshadaha taariikhda la qaban doono sida ku cad qoraalkan doorashada golaha waxay noqon doontaa haddii ilaahay idmo 15 bisha afraad ee sanadkan 2014 markii aanu aragnay sharciga lambarkiisu yahay 7 qodobkiisa 5aad faqradiisa 3aad sharcigaas qodobkiisa 27aad oo ah awoodda wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dhinaca rugta ganacsiga markii aanu aragnay sharci lambar 2 qodobkiisa 2aad faqradiisa 9aad oo ah dib u habeynta rugta ganacsiga iyo warshadaha inuu iska leeyahay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda ganacsigu ayaanu go'aankan soo saarnay sida oo kale xeerkan waxa uu sheegayaa lambar 7 in guddiga maamulka ee rugta ganacsiga iyo warshadahu iska leeyahay magacaabidda ama soo saaridda xeerka lagu dhaqaayo shirweynahaas socon doona muddada maalin ama labada maalmooda isagana qoraalkan warqadda tixraaca ah ayaanu ka soo saarnay oo waa qodobka 2 ee halkan ku xusan oo ah inay ku soo dhameeyaan sharciga xeer hoosaadka lagu maamulayo doorashada muddo 15 casho oo kaga eg 16 bishan March ee aynu ku jirno sidaas darteed anagoo ka faa'iideysanaya munaasabaddan waxaan ogeysiinaynaa dhammaan ganacsatada reer Puntland in shirkaas ay isu diyaariyaan isla markaana ay buuxiyaan shuruudaha looga baahan yahay shuruudaha looga baahan yahay haddaan hordhacan ka sii bilowno waxa weeye kow waa inuu ganacsade yahay reer Puntland ama uu ka ganacsado Puntland oo uu degan yahay isla markaana waa inuu haysto shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha isla markaana uu xubin ka yahay Chamber of Commerce ama rugta ganacsiga iyo warshadaha sidaas markaas ayuu wuxuu noqon doonaa ganacsade la doorto
ama ganacsade u yeesho xaq inuu wax doorto ciddii aan taa wadanin oo aan haysanin shatiga ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha isla markaana aan xubin ka ahayn ee rugta ganacsiga iyo warshadaha ee wax sharci ah oo u banaynaya ama xuquuq ah uu yeelan doono in la doorto iyo inuu wax doorto midna meesha ma jirto sidoo kale waxaan halkan ka sheegaynaa xubnaha rugta ganacsiga hadda ka ah xubnaha membershipka ka ah rugta ganacsiga iyo warshadaha inay wasaaraddan usoo gudbiyaan shuruucdooda iyo membershipkooda isla markaana ay haystaan oo ay halkan keenaan cadaymaha ah rugta ganacsiga iyo warshadaha maadaama uu kamid yahay in uu keeno shatigii uu ka haystay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wixii xeerar ah ee kale hadday noqoto xagga guddiga la magacaabi doono sida habsami u socodka shirka gadaal ayaa laga soo saari doonaa iyadoo lagala tashan doono rugta ganacsiga iyo lagala tashan doono ganacsatada guud ahaan ee Puntland sidoo kale waxaan ganacsatada ugu baaqaynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isu soo diiwaan geliyaan isu soo register gareeyaan uga qaataan shatigii ganacsiga ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha goobaheeda sida gobolada xafiisyada wasaaradda uga furan yihiin dhammaan ganacsatada waxaa loo sheegayaa oo kale inaan la aqbali karaynin shahaado laysan ganacsi ha ahaado mid membershipka ama ha ahaado mid wasaaradda ganacsiga ka soo baxday oo aanu ku lifaaqnayn general receiptigii ay lacagta ku bixiyeen oo ay wasaaradda maaliyadda aanu lahayn shatiga aan lahayn warqadda general receiptka ah ee lacagta lagu bixiyey ee wasaaradda maaliyadda wuxuu noqon doonaa mid aan sharci ahayn waxaana loo dabageli doonaa hab sharciyeed isaga ayaana loo ciqaabi doonaa waayo waxaan ognahay in dugmeenti fara badan oo wasaaraddan laga leeyahay in uu galay suuqa annagu haddaba taa ka duulayna ayaa waxaan ganacsatada ogeysiinaynaa in wasaaraddani ay samaysay dugmeenti ka duwan dugmeentigii hore oo kii hore laga guuray kaasoo noqon doona dhammaan shatiyada kala duwan iyo qoraalada ee lagu qaado wax ama xaashiyaha wax lagu qaado ee lacag bixinta ah oo ka duwan kuwii hore oo dhowaan hadda wasaaraddu ay daabacday iyadoo la kaashatay dabcan wasaaradda maaliyadda kuwaasina ay noqon doonaan kuwa cusub ee lagu qaato shatiyada ganacsiga waxaan uga digaynaa ganacsatada meel walbay joogaan inay ka digtoonaadaan shatiyada ku jira magaalada qoraalada hore ee ku jira ee waddanka gudihiisa oo dad aan sharci khayral-mas-uul aan odhan karno dad aan u tulaynin danta shacabka dad aan u tulaynin danta qaranka ay iyagu danahooda khaaska ah ku fushadeen oo saxiixyo badan intay ku sameeyeen oo been abuura ay suuqa galeen taana waxaanu ka codsanaynaa hay-adaha ay khusayso ee sharciga sida ciidamada ilaalinta cashuuraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha sharciga inay taa dabagalkeeda sameeyaan isla markaana ciddii lagu helo faldambiyadada noocaasa sharciga la hortaago sidoo kale waxaan mar labaad ku adkaynaynaa ganacsatada reer Puntland in ay u hoggaansamaan shuruucda waddanka isla markaana ay isdiiwaan geliyaan iyada oo diiwaangelinta goobaha lagu qaadayo haddana marka idinku celiya ay tahay goobaha meelaha wasaaraddu ganacsigu ay ku leedahay xafiisyada ee Puntland ka furan iyaga oo soo maraya wasaaradda maaliyadda taasoo ay kusoo bixinayaan fiiga ku waajibay ee shatiyada isla markaana wasaaradda ganacsiga ay iska diiwaan geliyaan ujeeddada masaaka idinku yeelnay waanu jecelnahay inaad gaadhsiisaan shacabka iyo ganacsatada waa intaa oo la qabto shirweynahaasna ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noogu dhaco jawi fiican